waxa maanta si ballaaran oo meeqaamkeedu sareeyo loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer barasaabka cusub ee madaxweynaha qaranka Soomaaliland uu soo magacaabay gobolka Togdheer mudane Xamse Maxamed Cabdi iyo wafdi hogaaminayo barasaabka ayaa waxay dadweyne tiro badan oo ku gaashaaman gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo mas'uuliyiinta degmada Burco ay kaga hortageen degmada Qoyta oo dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Burco barasaabka cusub ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale wafdidiisana uu kamid ahaa maayirka degmada Gabiley ayaa waxay markii ay soo gaareen gudaha degmada Qoyta ay gacan qaadeen dadkii shacabka ay soo dhaweynayay waxaana halkaas hadal soo dhaweynay ka soo jeeday maayir ku xigeenka degmada Burco xubno kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo barasaab ku xigeenka gobolka halkan maanta waxaanu ku soo dhaweynaynaa oo dadweynihii reer Burco oo aan u kala harin qaybihii bulshada waxaanu ku soo dhaweynaynaa barasaabka cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u magacaabay xilka gudoomiyenimada gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi waxaanu ku leenahay gudoomiye ku soo dhawow gobolkaagii Xamse waxaan leeyahay soo dhawow waxaan ugu ballan qaadaynaa inaan si hufan kula shaqeyno haddaan nahay degmada gobolkaba waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland noo soo magacaabay annagoo aad iyo aad ugu hambaleyna haddaan gobolka reer Togdheer Xamse Maxamed Cabdi waxaanu mar labaad u mahadnaqaynaa waftiga ballaaran ee labada soo dhaweyneed ee isku dhacay ee gobolka Gabiley oo sharaf iyo xusuus u mudan umhaatina u ah waxa uu ka soo qabtay iyo sharafta uu xambaarsan yahay waxa halkan maanta aan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer oo aan ku leenahay ku soo dhawow gobolkaagii aad ku kortay ee aad u dhalatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo magacaabay geestiisa barasaabka cusub ee gobolka Togdheer mudane Xamse Maxamed Cabdi ayaa shacabkaasi kaga hortagay degmada Qoyta sida ballaaran u soo dhaweeyay oo mahad celiyay runtii maanta farxadayda lama qiyaasi karo marka koobaad dhammaan qaybaha kala duwan ee dadweynaha gobolka Togdheer madaxda gobolka madaxda degmada xildhibaanada golaha deegaanka cuqaasha odayaasha aqoon-yahanka culimada haweenka dhalinyarada bahda saxaafadda waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa oo aan idinkaga mahadnaqayaa sida wanaagsan ee qiimaha leh ee aad noogu soo dhaweyseen gobolka noogu soo dhaweyseen intaasi kadib barasaab Xamse oo galbanayaan boqolaal gaadiidka noocyadiisa kala duwan ay wateen dadka shacabka ay soo dhaweynayay ayaa waxa loo soo gulbiyay gudaha xarunta maamulka gobolka Togdheer looga arrimiyo halkaas oo ay ka qabsoontay munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen waxgaradka cuqaasha culimada diinta siyaasiyiin iyo bulshada gobolka Togdheer oo xilka lagu kala wareejinayay barasaabka hore gobolka Togdheer iyo barasaabka cusub munaasabadaas ugu horeyntii waxaa la ka soo jeediyay odayaal waxgarad haween siyaasiyiin reer Togdheer ah waxaanay sabootiyeen barasaabkii hore iyagoo soo dhaweeyay barasaabka cusub waxaan leeyahay reer Togdheer ka tagayna waynu sabootiyeynaa ilaahay nabadgeliyo ka soo socdana waa soo dhaweynaynaa barasaabka cusub waxaanu leenahay soo dhawow maxamuud cali saleebaan ducaanu ku raacinaynaa laba nin oo magaalada ka dhashay weeye midna waa soo shaqeeyay oo waa sabootiyeynaa midna iminku inoo soo shaqeynayaa waxaanu leenahay aad iyo aad baanu kaa horena ugu ducaynaynaa kan dambana aanu ula shaqayn doonnaa ugu kalsoonnahay Burco iyo Togdheer oo kala hadhin ayaa isugu yimi taas waxay u qurux badan tahay xafladda tani waxaana wixii la isugu tagaaba saasay u qurux badnaadaan waxaanu leenahay anigoo afkaygii iyo afkii cuqaasha iyo kii shacabka Togdheerba ku hadlaya Xamse Maxamed Cabdi barasaabka cusub soo dhawow waxaan aad u sakootiyayaa barasaabkii hore Maxamuud Cali Saleebaan waxaan soo dhaweynayaa barasaabka yaga cusub anagu waxaan leenahay haddaan nahay haweenka gobolka Togdheer waxaan leeyahay waa kiina gacan qaban lahaa ee nala shaqayn lahaa sidoo kale munaasabadaasi waxaa ka hadlay maayirka degmada Gabiley maayirka degmada Burco barasaabka gobolka Saraar xildhibaano siyaasiyiin iyo sidoo kale waxgarad kale waxaana ilaahay uga rajeeyeen barasaabka cusub ee gobolka Togdheer inuu xilka u fududeeyo iyaguna halkaas uga soo jeediyay dardaaran culus horta Xamse maalintii gobolka la keenayay si wanaagsan oo sharaf iyo karaamo leh ayaad noogu keenteen waxaad ka marxaati furtaan idinkoo isu duuban inuu yahay nin sharaf leh oo qiimo leh oo karaamo leh waxaanu idin marxaati furanaa
wanaaggii iyo karaamadii iyo sharaftii markii uu shicibka ahaa uu togdheer joogay a ku ogeydayna noogu keenteen markuu xilka qabtay kamuu hoosayne wuu u sii korodhayuun waan arkaa maanta si fiican baa horta xamse loo soo dhoweeyey waxaa iga dardaarana xamse in sidaa loo soo dhoweeyey ee wanaagsan loola shaqeeyo hadhowtoolana annagu haddii aanu nahay gobolladii galbeedka waxaannu aad iyo aad u soo majireennaa gobolka togdheer oo aannu ku ognahay xigmad iyo caqliba inaannu garab istaagayno wixii wanaagsan ee ay dowladdaasi ku dhaqaaqdo waxa sharaf weyn yahay inaan maanta ka qayb qaato in isbeddelkan gobolka ku iman doona waxaan qirayaa in gudoomiyihii hore wax badan uu gobolka ka qabtay waxaan kaloo qirayaa in gudoomiyaha cusubna insha Allah taala uu wax badan ka qaban doono dad la xukumo waa dadka ugu wanaagsan reer Burco reer Togdheer gobolada Soomaaliland hadii la isu faanayo wax badan oo Burco lagu gaaro waxaan idhaahdaa waa gobolkii raggaan idhaahdaa anigu xamse cadow yurana waa gurigiisii aniguna waa soo dhaweynaya sidaan uu la shaqeynay barasaabadii hore iyo si ka qiimo badan maadaama inankaygu aflaxay uu yahay maxamuud cali saleebaan ramaax barasaabkii hore gobolka Togdheer imikana ah barasaabka gobolka Gabiley iyo sidoo kale barasaabka cusub ee gobolka Togdheer mudane xamse maxamed cabdi oo iyaguna halkaasi ka hadlay waxay yiraahdeen xamse anuu beenu sheegi maaye xamsow hawl adag baa taala waxa laga soo baxay campaign waxa laga soo baxay xusbiyo waxa laga soo baxay kala qobqobnaantii oo wali ka jirta gobolka waxa soo waayay sanad iyo barkii u dambeeyay hawlii qaranka ee horumarineed ee gobolka ka socday dhammaantood way iswada taageen waxa taagan jeelkii baa taagan dhakhtarkii oo kaliya ayaa dhismihiisii la bilaabay haweenka iyo caruurta waxa taagan garoonkii kubadda wax allaalo wixii qandaraas gobolka laga qaatay hal shay baa ka dhaqaaqay oo dhakhtarkaasa kulligood waxay kaaga baahan yihiin dabagal dadweynaha reer Togdheer waxa weeyaan maanta waanu dardaarmaynaa ka gudoomiyahan anigu waxaan idin ballan qaadayaa dadweynaha gobolka Togdheer inaanu cadaalad sameeyo ilaahay baa la hubo waxaan hubaa inaan idin cadaalad sameyn doono qofna aanan xaqiisa ku joogsan doonin qofna xaq aanu lahayn aanan sii doonin dun carbeed siduu yidhi diric kale ahaantii dareel guusha kama hele dadka geesi lagu yahay barbar istaagiina hadii aanan helin waxba ma qaban karo cid kasta oo nabadgelyada gobolka khalkhal gelinaysa afku doonto ha sheegto qofku doona ha ahaado waxa ballana inaan gacan birax kaga qabanayno gabagabadii waxaa hadalladii laga soo jeedinayay munaasabadaasi soo afmeeray wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye waxaan idin ka codsanayaa dadweynaha reer Burco inay la shaqeeyaan oo ay si wanaagsan ula shaqeeyaan halka ballanku ka qaaday oo uu yiri waxaan idin ku shaqeynayaa cadaalad inaad rumaysataan malidka ma rumaysanayna taa isku soo xooriye waxa gabagabadii halkaasi si rasmi ah loogu kala wareejiyay xilkaasi barasaabkii hore gobolka Togdheer iyo sidoo kale barasaabka cusub ee gobolka Togdheer mudane xamse maxamed cabdi kaas oo shacabka kala duwan gobolka Togdheer si ballaaran u soo dhaweeyeen isla markaasna ay waqti xaadirkan ka qabaan filasho wax qabad oo muhiim ah wa Khalid Bakayle fogaan aragga xorta Star TV Burco.